labaatan guud ayaad madaxa ka goysay. Waxaa ku fuulay xil culus oo mas'uuliyad la yidhaahdo. Awal waa lagu talin jiray, haddase adiga ayaa tale lagaa eegaya. Awal waxbaa lagu siin jiray, haddase waxbaa lagaa sugaya. Waxaad ka soo daahirtay buul lagugu baxnaanin jiray. Waxaadna u soo banbaxday gegidda lagdanka oo aad isku mudan doontaan wax adduunya lagu sheego oo xoog iyo xeelad badan. Waxaad ku gaashaaman tahay han iyo hunguri, galdalooladaaduna waa baahi iyo barya. Adduunku wuxuu kugula dagaalamayaa awoodda sare oo abuur ah iyo xeerar bulsho oo aamusan. Waxaad iska xaadirisa garoonka dheesha adiga oo guntiga dhiisha iskaga dhigay oo goosdambeed ku qabsaday beydkii salaan carrabe ee ahaa nin labaatan buuxsamay adduun way lagdamayaane. hankaagii wuxuu tusay inaad ka cusubsato laamaha faraqa leh ee cibaadada, suugaanta, jacaylka, fanka, quruxda, falsafadda, talada iyo murtida. Baahidaadiina waxay ku tunsiisay inaad kafarsato geedgaabka aan go'ayn ee gasiinka, guriga, guntiga, ganacsiga, gasabka iyo galmada. Isdiiddo kala fog ayaa durbaabo ku jahwareerisay. Waxaana xasuustaa ka kacay boodhka halhaysyo badan oo isdiiddadan laga yidhi, sida dani waa seeto, damacna waa lugooyo, iyo dan iyo dandar raboobo. Ila waxa isqaban la'ayba waa gaashaankaagii han iyo hunguri. miyaan xaalkaagu ekayn odhaahdii calaacalka ee cid hortiiba jabay? Maya, hadraawuba sow kama uu caban isdiiddada nololeed markii uu lahaa naf baan isla doonayaa isdiidda dhexdeeda. waxaad og tahay in noloshuba ka samaysan tahay isdiiddooyin isdhala oo midba kan kale la'aantiis aanu jiri karayn. isdiiddooyinkaas oo ay ku jiraan same iyo xume, nabad iyo colaad, habeen iyo maalin, cudur iyo caafimaad, nolol iyo geeri, gar iyo gardarro. intaasi waxay ka dhex dhacaan horsocodka labaqeexanka ah ee jiritaanka, kaasoo xilli lagu magacaabo. isaga ayaa mayalka u haya isbabeddelka khilaafyadaas. xilli nololeed walba oo dhacdooyinkiisa wataana waa waayo. hadba qole ayaa camirta dunida oo iyadaa dejisa hababka loo noolaanayo. waa isgedgeddi iyo baaxaadeg aan hal weji lagu arkay weligeed, oo qof walbaaba goobada nolosha ayuu meel kaga sugan yahay. isagoo qaadaya waa iska xaalaadun. haboonihii saalax qaasimna waxa uu ku heestay waxaad laga fogaysaa howlaha u badala. xeerarka bulshadu adiga waa ay kaa waaweyn yihiin. waxaa lagaa rabaa waxa ay saxda u yaqaannaan inaad samayso, waxa ay khaladka u yaqaannaanna ka hadho. haddii aad seerahaas dhaqanka ka tallowdo, waxaa kugu dhacaysa shaabadda waalida oo ah takoor daa'im ah. ma codsi ka dareen fog baad garanaysaa cabdi tahliil markuu yidhi hayqabanni waaya han noqonan loma weeshaan loma toogdoobtaan. maya garan maysid, dad badan ayuu ku jiifaa wakhti oo legdintii ayuu kaga awood barroonaaday. kamana duwanaa lug hangaraarac ka gooday oo cidimo dhaadanaa. miliilicada dhaayaha ee dareenka quruxda lagu muusoodo iyo sakarka samaha lagu liibaano waa midhaha qalbiga ka arkala ee aysan waxba ka doonayn, balse niyad wax tabaysaa wanaag kama taliso. haddii aad baahiyahaaga dhalanka ama arrinteeda u guntato oo hoy iyo hu iyo cunno tacabtid, taranna aad samayso si aadan u dabarqeen oo magacaaga ufu baaqi ugu sii ahaado, ku badbaadi maysid oo waxaad ahaan doontaa irmaaneeye maatada u roon oo maangaabaan aragti nololeed la weyddiin ah. ogabay lidkeeduna ka daran oo laqantooyo lagu lun. sheekooyinka jannooyinka raaxada lagu bineeyey iyo guryaha farxaddu gashay ee maskaxdeenna yaalla waa khayaali maaso ama rabitaan nafsadeed ee ma aha wax run ahaan loo arkay. waxaa aliftay maskax murqaansan oo xiisaheedii loo oofiyey dartiis ku hadlaysay. waxba ma goonan ama mid ifka ku leeleeshay oo xanuunka hayaad oo maskaxeed khayaali ah u hejistay, dabadeedna kaarjabin ahaan u noqday gaafanaysa. inaan dunida muwaafaqo ool waxaa kaa dhaadhicisay warbixin murtiyeysan ee waa nin iyo waagi. fakarku waa kuu gar oo nin xildhibaydhimay. maad isku wacdin fakarkii usha dhulka ku xardhayey mar iyo meel walba beeriskiisii surunkii aan joogaba dhulkaan sabay ku jeexaaye. adigoo og inaad go'aan ka gaadhi karto hilinka aad noloshaada u marayso, ayaad islamarkaasba og tahay inaadan awood doorasho lahayn
oo wax walbaaba qadariye malaha waa wixii dhici lahaa oo magac guud loo bixiyey qadar nasiibku waa dooqa cidda awoodda leh oo laguma kalsoonaan karo nafsiguna waa midhaha geedka aad beerato dhaqso iyo habsaan miduu kuu bislaadaba horta maadiga ayaa wax raba mise cid kale ayaa wax raba labadaba dadka iyo waktiguba waa ay kaa badan yihiin ee sidaad rabto haddii la yeeli waayo yaan deganaanta kaa lugin legdankii adiga iyo waayaha waxaa ka horreeyey dagaal naftaada ka dhex boogsaday oo ah muran legdamay adigoo weli fikeraya oo wax walba sidoodii yihiin ayaa lidkaagii weynaa adduunka ugu soo kadiyey dabadeedna si sil ah ayaad isu gasheen rab iyo labada talaba tii roon ويسكح على دور